شيدامada ugu weyn la xiraaye bishii naarta la xiraaye adiga xitaa soo gato was diyaariyay waxa sameeyaa hawo afur yar bixiya ma fahmino afurkaas waxay tahay hadi biyo oo qabow baraf ah iyo timir oo yar oo dadni oo isoo dhibteen iyo sadaqe iyo waxa aan isku darsado ilaa dad waxa jiraan mootole iyo dad waxa jiraan oo biyud macnaa u dhoweyn ma fahamtay dadkaas macnaa afurin waxaas u bixiya soonkii ashkur macluuraad wallahi soon diyaar waha waxaan ugu diyaar garoobay xagga diiniga waxaan rabaa shay tobanka hore inaan kitaabkayga akhristo iyo sheeg mar subaxdii hore aan shaqaysto oo subaxdii hore inaan kitaab akhristo asridiina aan shaqaysto shay tobanka hore kadibna waxaan rabaa inaan wada shaqaysto caadi ahaan marka la soonka la gaaro adi maxaa qorshaysataa maxaa qabataa waxaa ii qorshaysan soonka adi waxaa waaye ani inaan shaqaysto oo adi koba aan ku shaqaysto bis taas ay qorshaysan ganacsiga ka shaqaysan waxaan ka shaqeeyaa adi kobaan gada macnaa soonka waxaan rabaa inaan koba gado oo meel aan furto aan shaqaystaan rabaa marka la eego dadka qaar waxaa jiro aan u diyaarsanayn soonka oo macnaha ayadoo oo macnaha arrimo kale ku mashquulsan oo soo galo dabcan cibaadadeedin ka mashquulin dadkaas waxaan dhihi lahaa Allah soo hanuuniyo saaxib cibaadada in lagu mashquul waa wax fiican ma marka waxaan dhihi lahaa dadkaas Allah soo hanuuniyo inta hanuunsanna macnaha waxaan dhihi lahaa ilaaha kuwaay magaalada marka ay eegto ma laga dareemaa soonsoon ma u diyaarsantahay asleeda dadka Soomaaliyeed qaarkood dhibaataysan yihiin soon waa dadku u diyaarsiin laakiin waxaa jira dadka qaar aan awoodin afurkana si ka bixin marka waxaa rabaa dadkaas qofkii wax haysto inuu caawiyo macnaha afurka uu ka bixiyo jira marka dadka qaar jiro aan waxba haysan laakiin aan waa shaqaystaa waxaan dhihi lahaa dadkii wax haysto midka kale walaalkaaga wax ku tar afurka bixi iyo sheeg saxuurta si taas aan dhihi lahaa يا صاحب magacaygu waa Maxamed Kayel wadaanka saaxiib in badan oo sigeynay oo diyaar garownay wadaanka saaxiib wala wada sugaya Soomaa khayr iyo maxaa la dhaayay adii khayrkiisa uu wataa in kastoo kuleel uu soo aadayo saaxiib horta magaalada dadka badankooda ma wadaanku u diyaar garooween waa laga dareemaa in kastoo dad iska danyar ay jiraan bulshada badankeeda saaxiib wadaanku u diyaar garoowday sida anigoo kale waa ka wadaanku waa sugeynaa saaxiib maxaa isleedahay qabo ramadaanka xilliga marka la gaaro bisha ramadaan bisha ramadaan markii la gaaro saaxiib faa'iidooyin aad u tiro badan oo ku jiro caafimaad oo ku jiro ramadaanka maxaa la dhahayaa cibaado badan waayo bishii dambi dhaafka bishii shaydaamada ugu weyn la xiraaye bishii naarta la xiraaye waa bil ramadaan maxaa la dhahayaa wax walba cibaado aad iyo aad ku wada faa'iideysano ramadaanka dambi dhaaf uu leeyahay salaadiisa maxaa la dhahayaa kii salaad aan mar horena aan ku fiicneen ma aragtay ramadaanka markii la gaaro saaxiib salaadiisa iyo ramadaankiisa cibaadadiisa cibaado dheeraad ugu dar saaxiib oo diyaar garowsanaa saaxiib ramadaanka maxaa isleedahay bulshada Soomaaliyeed oo qaarkood dhibaataysan yihiin sida ay uga qayb qaadan karaan inay u soomaan maadaama ay dhibaatooyin qaar ay haysan qaar danyar ay jiraan saaxiib qaar danyar horta bulshada dhibaatooyin Soomaali ay ka mid tahay marka niyo danyartan waxa ku fiicneed maxaa la in kastoo madaxweynaha u jeeda Xasan Sheekh tabarucaad in loo bixiyo maxaa la hayay waayo ramadaankeena uu imaaday haddana maxaa la hayay iska danyareen marka bulshada Soomaaliyeed sida waxa ay kartaa sida wallahi bulshada Soomaaliyeed horta saaxiib in aad iyo aad loo caawiyo waayo dadka danyarta dhibaataysan waayo ramadaanka si ay ugu qayb qaataan oo magacayga xayaat xirso dheer waaye oo ku dhawahay marka anaga is caawino ilaahayna caawinaa isgarab qabsada dadka kale ee miskiyaashane garab hala siiyo halis ogaado hadii aan si ugu diyaar garoodo ramadaanka marka la eego maadaama maalmo quraan naga harsan yihiin adiga xitaa soo gato was diyaariyay soo waa ku faraxsanahay inaad i wareysataan adeega wadataa dabcan masoo adeeganaysa ما أديك موتي أنا أصحابتي ذا بناك سواء نجيمة كيما أنا بناك أني سؤالي أنا أسكت يارنونا ما دام يتعامل مع بناك لا يحرونا بالعبادة هاي عرفت بوي علي لها بقي عايدني علي ما فهمتي
waxaan ummadda Soomaaliyeed waxaan aad iyo aad u wargelinayaa soomankii hore iyo soonkan oo diyaar garoobis oo maalinta arbacada aan rajaynayna insha Allah ilaahay nabad iyo caafimaad iyo cimri dheer Allah nagu gaarsiiyo horta soonkan oo hadda soo socdo oo maalinta arbacada ah waxa macnaha soomankii hore wuxuu ugu duwan yahay hawo hadda dalkii hawo macnaha oo abaar ka jirto macnaha xagga beeraha مفاتيح بيراها وح عبارة واحد هاي إن ربكي على الأسية هاي مفهمينه قدرتي سهر وسوق جدا ومسوق قضاء وحلينا هاي ضدك مساكين تو بيراها كنا وحلي هاي بويدو وبيئة إن دالوج مفهمينه يا هو وحبه أفرن يا وحبه إن لوج يا رجينا مفهمت هذه هان مثلا هاي وصون كان وعود ديار جرود سيدي صون كهراء وكله والله صون كان سيدو هذا تذكرنا هذا دا واحد يعني صون كان صون في عن واي صون بركسن واي مفهمت إلى صون وعب الجعلية هذه صون كمعنا وحال الجعلية هاي فضل بلون اللي هاي عملوا اسبدلي جبي إنسان مع إنسان مكسي خرج بدناني مفهمت هذه تذكرنا معناها صون ديار يجينا هذه أديهان محاسلة راسون كوا ديار جرود أو تسميه دون تعمر كل جار لا أنا وحاسمة مفهمه رمضانك وحاسمة أو أفريرة بحيا مفهمه أفريقيا سوحيت هذه بيئة أو قوة برفة يو تمر أو ير أو دقني أو يسود يتم يصدقه يوحى عن يسكن درسه إلى دق وحاجران لوتولي يدد وحاجران أو جلود من أولي مفهمتي دد كاسا من أفرين وحاسب بحيا صونكي maxaad u jeedinaysaa dadka soonka ilaahay gaarsiiyay oo sooman oo ku aadan sida maadaama aad sheegtay in dhibaatooyin ay jiraan dalka ka jiraan والله دبتين كسرته واحد زائد لو عملنا والله باهي أوار درن لو عملنا هرت بحاج بادية حاج خضار تنوي معده خضار دلكين عادي هذا وبعلا ودرت كلي سنة وأنا أو من آخر سنة ما فهمت هذه الواحد لا يعي مساس بيدو ضد معناها لا أفرسيو دولة الله هاي إلا أفرسيو وضد كاس معناها عوشات معناها إد بدن ويسعد وعرت عملنا عوشات نسوا بدنا يعني حوالي بنما نفهمه وحلا بيو وحول في اللوجيو أفرن أو خطر اللوجيو معناها أو الكاسين تمرت بيها ما عندنا داويلا ولا وجيلا لكن سبحان الله يستر لكن واحد أولني وجينا إن شاء الله